واتاي ان داودها حق وحو ليه الشيخ نين با la waayay muddo ku dhow hal sano kadib naagtiisa way iska fasaqday nin kale ayay guursatay bilo kadib ayaa ninkii hore yimid iyadoo naagtiisa ay uur leedahay xaaladaasi sidee la yeelayaa naagta iyo uurka caloosha ku jira ninkee ayaa qaadanaya bismillaahir rahmaanir rahiim masalada ku saabsan ruux la waayay mafquudka la waayay wax horta nas oo quraan iyo xadiis oo ku soo arooray ma jirto laakiin waxay ahayd dhacday xilligii khulafaa ur-raashidiin khaasatan xilligii uu Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu oo muslimiinta xilkooda hayo khaliifka ahaa ayay dhacday oo nin ayaa waxa dhacday waa la waayay ninka jimba dafay muddo wuxuu maqnaa 4 sano ah waqti kadib mar la waayo laga samray ayaa marka ayuu yimid war maxaa kugu dhacay oo maxaad reerka u dayacday baa la yiri markaas wuxuu yiri jin gaala ay dafay iyagaan marka la noolaa iyagiisan ula noolaa kuwa kale oo muslimiin marka yaa soo weeraro dagaal ku qaaday kadibna jinkii gaalada laga adkaaday ninkan oo maxbuus oo meel ugu xidhan oo bay u yimaadeen oo qabteen oo war maxaad ahayd oo nin muslim aan ahayo xagee ka timid oo meeshaasaan ka yimid jinkii muslimiinta marka waxay khiyaar galiyeen inuu la noolaado iyaga iyo in ay ku celiyaan meeshii uu ka yimid magaalada Madiina oo dib ugu celiyaan bas waxaan ka codsaday buu celiya sidii bay soo qaadeen magaalada Madiina dib u keeneen 4 sano kadib ayaa marka ninkii uu dib u soo laabtay xilliga Umar bay dhacdadaasi dhacday qisaduna waa qiso sugan kadib meeshaas waxa ijtihaaday khaliifatul muslimiin Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ardaa oo wuxuu yiri haweeneyda ninkeedii la waayay waa in 4 sano la sugo 4 sano wixii ka dambeeya hadii la waayo way ciddo tirsanaysa markay ciddada dhameysatana way guursanaysa haddii marka kadib ninkii uu yimaado isla Umar waxa ka sugan ninka gadaal ka yimid haweenadiisii oo inta la fasaqay nin kale qabo laba khiyaar buu laba isaga u khiyaar la ku doono ayuu sameynaya in haweeneyda loo furo oo ay ciddo tirsato oo markaasi ay isagii dib ugu noqoto iyo inuu sidee isaga daayo ninka daba u daayo oo markaasi isaguna mid kale iyo guur kale raadsado faraha ka qaadana wuu heli karaa labadaas uu khiyaar galiyo sidaas daraadeed maqsuudkii ujeedadan kale waxa weeyaan ruuxa la waayay isla muxuu ahay fatwadaas oo kale waxa leh Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu khaliifkii isaga ka dambeeyay waana madhabka ay culimo badani qabaan sida saxda marka waxa waa in uu yaraan 4 sano la sugo ruuxii ninkii hadii la waayo xaaski waa in 4 sano sugto 4 sano wixii ka dambeeya ay ciddo tirsan kadibna way guursani markaas haddaba su'aashii haddaan dib ugu soo laabto ninkani 4 sano lababa sugina 1 sano markay joogtayba nin bay guursatay meesha marka waxba ka khaldan way degdegtay xilligii iyo muddadiina mayna sugin fasaq qasaab ku dhacayna waa fasaq inta aqwaasha ahlul cilmiga masalada ku soo arortay aan arkay aan qaldan oo waqtigiisii aan la gaadhin sidaas daraadeed fasaqu waa qaldan yahay guurka dambe ee ninka ay guursatayna waa qaldan yahay laakiin ilmaha uurka ku jiraay asagu waa ilmo sharci ah waxaan u leenahay marar far badan ba tilmaanay ilmaha uurka ku jiraay inuu ilmo sharciga noqdo aabihii ku abtirsado waxay u baahan tahay kaliya inay labadan ruux markay kulmayeen oo sariirta ku kulmayeen inay rumaysnaayeen inay xalaal isu yihiin haddii ay sida ku kulmaan ilmuhu sidaasuu abtirka ku qaadanaya ilmo sharcigana ku noqonaya markaa kadib haba caddaato in kulankoodu u khaldanaa oo guurkoodu khaldanaa oo is-araggoodu khaldanaa haba caddaato dib ha ka caddaato laakiin haddaybay niyadaa ku kulmeen oo dad xalaal oo shareecadu isu xalaalaysay isu haysteen ilmuhu mar walba wuxuu noqonayaa ilmo sharciya ilmahaasi marka wax weeyaan abtirka aabihii buu qaadanayaa
haweentan sida khaladkaa samaysayna ninkeedii hore ayay ku mehersantahay xaas u tahay ilmaha markay dhasho way ciddo tirsanaysaa kadibna ninkeedii hore xaas u tahay kan dambana waxaa la leeyahay meesha isaga bax ilmihiisana isagaa iskale wallahu aclam